waxa kale to isagana qodob kale ah labada ruux ee wada jooga ee guriga ku wada nool waa ninkii xaaskiisa waa in ay jirto kalsooni dhexdooda taala waa inay isku kalsoon yihiin 100% xaaskaaga waa inaad ku kalsoon tahay 100% haweentuna waa inay ninkeeda ku kalsoon tahay 100% shaki waa inuusan kaa galaynin haweentaadu inay daacad tahay in ay wanaag ku hayso in ay cafiifo tahay oo dhowrsoon tahay inay yani waxa waa inaadan tuhmin haddii meesha ay tuhma soo gasho oo haweentu ninkeeda tuhumto ama ninku xaaskiisa tuhmo waxyaalaha nolosha qasay ka mid sacaadada iyo liibaanta qoyska waxyaalaha qasa oo calwiya ayay ka mid tahay tuhmada aan waxba ku salaysnayn oon qiimaha lahayn مثلا waxaa jira ragga qaarkood oo masayr badan baa jira dumarka qaarkood waxaa jira masayr badan baa jira iska masayrsan iska kacsan mar walba بدون أي مبرر وين مركا وحي أي شرتو كالسونيد الله وضر روح كده كالسونيد ومهم يعني وحوي الصدق إخلاص يعني وحوي دور صونان الدين شخصية ده عمل وح قابك وحوق قبنا يروح وإنه بقولك وبقول كالسونين وعسى وإنه شرتو واللوبة هي تهم ماذا يشكي جنا وإنه غيرك كده بحول غيرك أنت شكي كل حشرة المثال لما يشاس النور في عن مثال أنت تهم كل حشرة النور في عن مثال ساس درادت مع النبي صلى الله عليه وسلم وحيله إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله مصير كوحة كمدة مد إلهي تشعلي هاي يمد إلهي نعبي هاي بوقيب صلاة مصير كوالا بضع وإن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغضه الله يعني حرق كبيرك إسقاطقاتك يا الله بوقيب صلاة إسقنا مد إلهي تشعلي هاي يمد إلهي نعبي صلوا كيوي كإلهي نعبي هاي كإلهي تشعلي هنا واكي والنبي صلى الله عليه وسلم فأما الغيرة التي يحبها الله مصيرك يفعل ذا إلهي وتشعلها وحوي فالغيرة في الريبة بالنبي صلى الله عليه وسلم مركي ماشا وح شكي كيني كرأ وتشرو وحل دونا يا إنه فعل الله ذا الروح خاصة إنكم إنه فعل الله ذا هوانتو كفعل الله ذا وحي حمانا إلا كفعل الله ذا مركي وتشرو وح شكي كيني كرأي ومحيها مثلا لقن حمو أخلاق حمو يعني وحويان يعني شرفتي ولقوا عياريو ان آدابتي شرعادو ميل لغا دحايو ان مثلا وحوي حجاب لa'aan oo la baxayo rag ajaanib oo gurigi iska tubano مثلا وحويان ma tale iska hasaawayo wixii markay heerka gaadho wax shaki kana u jiro waa in markaasi oo ruuxu ka xanaaqo ka xumaado diido ka biyo diida la doonay midda ilaahay waa jecel yahay subhanahu wa ta'ala maxaa yeelay waxa la diidan yahay sideedaba ninku guriga maadaama uu mas'uul ka yahay ilaahayna kala xisaabtamayo gurigiisu inuu noqdo kilaab la isugu yimaado lama rabo muntada la isugu yimaado oo fawaaxishta iyo xumaanta iyo gabdhaha iyo wiilasha isugu yimaadaan guriga inuu noqdo ma haweentaada cirdigeeda iyo sharafkeeda inaad ka qiirotood ka masirtood ka ficilooto loo baahan yahay maxaa yeelay nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam la yadkhulu aljannata dayuth bu nabi sallallahu alayhi wasallam ninka dayuth la yiraahdo jannada ma galo oo dayuth yaa way wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam waa ninka eheladiisa iyo reerkiisa xumaanta raaliga uga ah wuu ku arkaya danka male gabdhihiisii xaaskiisii qaraabadiisii dadku mas'uulka ka ahaa xumaantaas la qasanaya isaguna danba kama laba doofaar ficil la'aan baa loo cadaabay Soomaaliya ficil laba ma balaba kaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam la yadkhulu janna jannada gali maayo xaaladaasi ghayrada timaaday nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waa ghayro iyo ficilo iyo masayr ilaahay jecel yahay limaada laana xumaan ba marka laga hortagay laakiin midda ilaahay uu nacib yahay waxa weeye nabi sallallahu alayhi wasallam fal ghayratu fi ghayri riba nabi sallallahu alayhi wasallam wa in uu ninku shaki iska galo oo tuhmo iska qaado isaga oo wax shaki keena muslimiisha oo lima cudur buu noqday waa jiran yahay waxa ku dhacay uu macna wax weeye mar walba wuxuu uu fahansan yahay gurigan markaad ka dhaqaaqdo waa lagu soo dawmaraa war balaay kugu dhacday yaa ku soo dawmaro oo reerkaaga wax falay waa jiran yahay jiru marka dambe ku noqonaya sidoo u wada marka dambe wuxuu noqonayaa inuu macna hooskiisa ka dido oo guriga markuu soo galay meelahaas raad ka soo fiirfiiriyo oo guriga markuu yimaado uu meelaha fiirfiiriyo oo isagii dhama jiru ku noqonay jiru taasoo kale nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ilaahi waa nacibiye subhanahu wa ta'ala ama inuu dhuundhuunto oo reerka u gagabado oo uu yiraahdo maartay bal mar'un si kada ah hawshiyo u socota aad ka dulacday oo maxaad ka dulacday nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu
midkiin markuu yani waxa weye maqan yahay reerkiisa yuusan ku soo guurin oo guuro ugu imaanin buu nabig uri sal lay slam yatakhawanuhu isaga oo doonaya inuu mar uun ka helo jaanis ka helo oo yani intuu u gabado usoo dhunto waan safray intuu yidhah ragga qaarkood waa sameeyaan waan safrayaa hadda reerkii wakaa intuu yidhaah meel fog ma aadin ayuu habeen barhkii guuro ku imaanaya gab maxaa meesha yaalla reerkii iyo qoyskii iyo ilmihii unbaa meesha yaalla wax dhibaatoo jirta male tan noocaasoo kalea nabigu wuxu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh ilaahay waa nacib yahay ma jeclo subxana wa tacala maxaa yeele maxay soo gelaysaa yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adanni ina bacda danni isman tuhmada inteeda badan ka fogaada baa la yihi subxana wa tacala maxaa yeele tuhmada qaarkeed waa dembi iyaakum wadanna faina adanna akdabu alxadiid tuhmada iska jira buu nabig sal lay wasalam tuhmadu wax wey waa been tuhmada inteeda badan waa been sidaas daraaddeed masayrka noocaasa ilahay ma jecla subxana wa tacala waana inta badan guryaha badan waxyaalaha dumiye ayuu ka mid yahay